الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي وإن سلامي ملكستو عالمك جوجتين soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada asxaabta cusub asxaabtii hore dhammaantiin waa idin mahad celinaya sida wanaagsan ay la socotiin maanta waxaan soo binayaa chicken aad iyo aad u fudud oo aad u macaan maasha Allah tabaaraka Allah meeshaan waxaan ku haystaa spacigi iyo chickenkaas oo lugaha waa ujeedin waxaan suubsanaynaa spacega idin sheegaya insha Allah fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gambalelka furasiya oo aragtida fiidiyoyaasha soo socda iyo kuwa hore intaba like dhiirigelin inoo tahay si share gareey asxaabtaada la wadaag waana mahadsantihiin meeshaan waxa igu jiro spacegan oo kala nooc kan waa oregano intaasan ka qaadanaa hal qaado waxaan kala meeshaan ku haystaa hal idin tusaaya kaas waa lemon pepper kaas waaye qaado camal waaye waxaan kaloo haystaa haruudda qaadada oo nuskeeda waaye wax yar aan ka qaatay qaybtaas yartaa waaye cusbo qof walba uu garanayaa wax yar aan ka qaatay ayadana waxaan kaloo isticmaalayaa halkaas oo igu jiro waa rosemary ma badin wax yar waaye waxaan kaloo ku darsaday oo halkaa igu jiro filfil black pepper waaye runtii aad u macaan tahay maqaayad ayada ka macaan soo tijaabiya halka waxa igu jiro maraq digaag qaado nuskeed wax yar halkaasna waxa igu jiro waa cinnamonkaas qorfa shiidan meesha waxa igu jiro basbaas waaye basbaaska oo basbaas gaduud toon iyo kabsar caleen isku shiidan waaye oo cusbaxtaa leh dhadhankeeda wadato intaas waaye waxa kaloo igu jiro barbarika gaduudka waxaa idin ka hilmaamay xawaaji igu jiro wixii dhan isku qasay raali ahaada xawaajiga ma haysanin bahalkiisa anaa shiitay isku darsaday marka xawaajiyada caadiga waaye waxaan ku darsanayaa vinegar qal waaye qalka aad iyo aad u maceeya chickenka aadna u jilciyaa wuxuu ka dhigayaa soft afkaada ku dhamaana waxaan kaloo ku darayaa soy sauce ka sidoo kale chickenka number 1 uu yahay ka faa'iideysta chicken macaan hadaa rabtid waxaan oo dhan inaa haysatid waaye waxaa haysatidna waa ku darsan kartaa hadaa rabtid kabsar iyo toon cusbo iyo sanjabiil xataa ku darsan kartaa iyo filfil waxaan ku daray saliid saytuun saliidda xoogaa ayaan ku daray waxaan rabaa chicken masha Allah tabaarakallah inuu ka soo baxo meeshaas chicken fudud oo macaan badan waaye runtii lagama hadli karo chickenkii oo soo dhaqay oo biyo kulul iyo cusbo iyo qal ku soo dhaqay aan ku shubayaa waa soo dhexgelinayaa markaa liftaan ka soo gelinaya lifta saasa u gelinaya oo ku cajiimooyaa kor iyo hoos inaa ka marisid waaye chickenka wax kaleeto aan ku darayo ma jirto asxaabteeda ovenku aadayaa saan markaa u mariyo waxaan ka soo bixinayaa hal saac aan karinayaa adiga 45 daqiiqo 50 minutes iyo 1 hour intaas uu ku bislaanaa hal saac aniga ku karinayaa asagoo dry oo wax dheecaana lahayn oo maasha Allah aan ka soo bixinayaa waa arki doontiin soo kusoo baxa laakiin maast waa inaad saas chickenka isku dhex gelisid oo wax alla waxa amarisay aad lift ka gelisid gudaha u dhaadhicisid waaye hadaa rabtid xataa waa la dhigi kartaa 20 daqiiqo hal saac fridge waa la gelin kartaa caraf iyo macaan kasii qaadaya ka asxaabteeda waa kaasa runtii chickenkan aad iyo aad u macaan yahay ka faa'iideysi wacan fadlan hadaa ka faa'iideysatid si gudbisi walaalkaa uga faa'iido saas aan isku dhex gelgelinayaa waxaan rabaa inaan si siman oo maxaa la dhihi jiray aan u geliyo waayo saas ku dul saaran haddaan ovenka geliyo waxaa waaye qayb baan ka tagayaa inay bislaato marka kulligii saas isku soo dhex gelinaya waa soo simay oo ujeediyeen aad iyo aad u fudud yahay kariskiisa cunitaankiisana maasha Allah carafta iyo dhadhanka lagama hadli karo marka asxaabteeda hadda saana ovenka ku aadaya ujeedin suu eg yahay
markuu soo baxana waa isla arki doonaa insha allah. qurux samaahan maasha allah, inta haysan allah siiyo, anakana allah noo siyaadiyo. saasoo kusoo baxaya markaa soo karisidna isla sidaas oo bisayl uu ku yahay oo maasha allah kusoo baxaya. weli ani waa isdhex gelinayaa. chickenkan carafta iyo macaanka iyo wallaahi maasha allah tabaaraka allah caadi ma aha. yaa 5 xabaa hal mar cuni kartaa haddaa reero chicken tahay, xataa haddaad ahayn ilmahana maasha allah saas u kala dafaayaan. markaa hadda ovenka kasoo bixinooyaa uu soo diyaar garoobay. markaa soo diyaariyey qadadeeniina waa tanaa saana kasoo baxday, chickenkii iyo bariis iyo salad kastoo yaroo xumus ah. ujeediin sida quruxda badan oo kusoo baxay maasha allah tabaaraka allah, innaba caadi ma ah. asxaabteeda intaa ku kulmayno videoga xigo, waxaan idin rajeynayaa nabadgelyo iyo caafimaad meel kastoo caalamka ka joogtiin. waxaan rajeynayaa inaad sii share gareysiin wixii talo iyo tusaale qaybta commentiga noogu reebo. waa mahadsantihiin sida wanaagsan ay ila socotiin, mar walba dhiirigelintiina waa waxaan ku shaqeynayo. aad iyo aad idinkugu mahad celinayaa asxaabta sharafta mudan. asalaamu calaykum.